daacad u noqo laakiin ha ogolaan in lagu isticmaalo. Jeclow laakiin ha ogolaan in qalbigaaga la jabiyo. Aamin laakiin ha noqon qof fudud. Dhegeyso dadka kale laakiin ha ogolaan in aad adigu codkaaga weydo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa markale furiyo cusub. Ma si qaadan kartid xoolahaaga markii aad adduunka si tegayso, laakiin waxaad samayn kartaa in aad si horumarsato badi oo sadaqada bixi. Noloshu sideeda way gaaban tahay. Waxay u dhaxaysaa dhalashadaada iyo dhimashadaada. Intaa yar eed nooshahay u shaqayso taar dambe ee lagu waarayo. Goortii aad gaadhiga fadhiisato suunka xidho. Markii aad xanuunsatana booqo dhakhtar oo qaadidooda uu kuu qoro. Laakiin waxaad ogaataa in Allah wax kasta u badbaadiyo. Xus oo xasuusno kuna mahadnaq mar kasta. Maalinta ugu wanaagsan noloshaadu waa maalinta aad garowsato in aad naftaada mas'uul ka tahay. Iska joojiso cudurdaar iyo cabasho. Cidna aadan cambaarayn. Ceeb iyo ciladna aadan u raadin wax kasta. Noloshu waa safar, adigaana ka mas'uula in aad tahiso ama tala xumayso tub khaldan aad raacdo. Dadka qaarkii marnaba ma rabaan in runta ay maqlaan, sababtoo ah ma doonayaan in dhalintoodkooga la burburiyo. Marna ha ka quusan waxaa si dhab ah u rabto. Way adag tahay in la sugo, laakiin waxaa ka sii daran inaad ka shalayto. Kuwa xumaanta u saaxiibka ah waa sida dhambiisha dhuxusha oo kale. Midda kale ayay gubtaa. Haddaba ka fiirso saaxiibka aad la socoto. Muhiimadu ma ahan inaad noolaato, laakiin waxaa qurux badan inaad u noolaato si wanaagsan. Dhoolla caddayntu waa hadal wanaagsan oon codkayga la maqlin. Dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdoodu si kasta ay u weynaadaan ama daa ugu darsanto, sababtoo ah quruxdoodu marnaba ma ahayn wejiga, laakiin waxay ahayd qalbiga. Guusha dadka kale ma ahan guuldarradaada ama fashilkaaga. Marnaba ha ka xumaan guul uu qof kale gaadhay. Isdiyaarin, dadaal badan, doonis joogto ah, dulqaad iyo duco ayaa ah inta badan sababaha guusha lagu gaadho. Haddii aad la fadhido dadka aqoon badan, dhegeysto fiican noqo. Weligaa iska jir in aad qofka hadalka dhex gasho isagoon hadalka dhammaysan. Ha ka hadlin waxaanad war u haynin ama aadan aqoon u lahayn. Carabku waa turjumaaga caqliga qofka. Karaamada iyo weynida qofka waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa xadka uu naxariisto dadka xaqiisa qarada ka kala. Haddii aad doonto khayrka meesha u noqo, laakiin sharka madaxa u noqon. Qofka oo cadhooda marka la canaanta waa astaan muujinaysa in uu mudnaa canaanta. Marka aad taariikh dib u raacdo waxaad ogaanaysaa in runtu tahay mar walba mid aan la faafin. Imisuu lacag iyo hanti ururiyay nin aan carfanayn. Imisuu qof cunay xoolo iyo hanti aan ururin. U sabir xaasidkaaga, waayo samirka ayaa dilaya. Soo ma ogeyd dabku haddii uu waayo wuxuu cuno inuu isagu socno aakhirka. Qofkii xoolihiisa u foofiya kaymaha bartooga hoyga oo ah ee ilaashan waayay iyaga ayaa ka damaanad qaada ilaaladiisa. Sharafta iyo karaamadu dhib la'aan kuma waaraan ilaa dhiig lagu sadaqeeyo. Maalin aad si libaax u noolaato ayaa ka wanaag badan 1000 sano oo aad u noolaato sida xoolaha oo kale. Geesinimadu xoog ma aha, waayo kaneecadaba waxa ay ka dheejisaa sanka libaaxa. Haddii aad caado ka dhigato in aad ka cadhooto wax kastoo nolosha ku raali gelin waaya, abidka nolosha ku xasilimaysid. Sirta noloshu ma aha in aad wax samayso, laakiin waxa ay tahay in aad jeceshahay waxa aad samaynayso. Rajadu waa waxa kaliya ku horseeda in aad hore u socoto. Ha rajo dhigin marnaba. Farxaddu waa geed, biyihiisa, cuntadiisa, hawadiisa iyo iftiinkiisu ay tahay iimaanka aad rumaysan tahay Allah. Runtu wax yar ayay ku dhaawacaysaa, balse beentu weliga ayay ku dhaawacaysaa. Ummadda aan aragti dheer lahayn waa ummad dhimanaysa.